culimadeen iyaguna waxa weeye duruufo kala duwan bay soo mareen. Sheekh Shariif Cabdinuur, Sheekh Maxamed Macalin Xasan iyo rag badan oo la mida kontonaadkii waxa weeye Hargeysadan ay yimaadeen iyagoo intaasoo Muqdisho qaar ay ka yimaadeen, qaar Baydhabo ka yimaadeen, qaar meelo ka shisheeyay ay yimaadeen, la soo lugaynayo Jigjiga iyo Dirir dhabay soo mareen, Hargeysa yimaadeen, intaasi ay lug u tahay. dabeedna waxay maqleen jaamacatul Azhar bay maqleen, lugtii ay halkaa ka qaadeen oo Itoobiya ku tageen oo ay Suudaan ku tageen bay Qaahiro ku galeen. dabeedna jaamacaddii nin master qaatay iyo nin bachelor qaataba halkaasay ka soo noqday iyagoo cilmi xambaarsan. maantana waayaheena iyo duruufaheennana waynu arkaynaa. duruufaha qaar soo maray waxaa ka mid a xalaqaadka masaajidada inay intay dhigtaan bay masjidka u hooyanayeen, hooyaad kalena may haysan. aabba wuxuu iga sheekeeyey markuu Dirir dhaba cilmiga ka dhiganayay, wuxuu yihi maanaan haysan meel aan wax ka cunno, xer baanu ahayn masjid degan oo xalaqaadka ku dhigta. waxa dhacaysay waagu markuu baryo ilaa gabalku uu ka dhacayo biyo mooyaane wax kale inaan la cunay, intaana waxbaa la dhiganayo, waxbaa la akhrisanaya, wax la cuno lama hayo. ninka xariifka ah wuxuu samaynayay dadka ladan magaalada intuu u tago odhanaya bal isku joog fiican i ammaanaysiiya, maanta casuumad halkan aan ka qayb gelaya. siimaahum fii wujuuhihim, nin dee duruufaysan waa la iska garanaya. marka intuu si fiican u maydho oo labis fiican xidho ayuu faylka galaa, marka labiskiisa la arkaa layaa soco, dabeedna maalinkaasuu si fiican u hilbeeya. kii intaas soo waayaana gaajuu ku jira. wuxuu hi ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey hudheel nagu dhawaabaa ila berigaa tallaagadana lama hayni. markay cashada ay wax ka soo hadhaan intay baarix noqon lahayd ama la daadin lahaa ayuu soo qaadaa hambooyinkii iyo wixii ka soo hadhay. dabeedna wuxuu hi albaabka masjidku keenaa. albaabka markana lagu tumo habeen barhka 12 habeennimo, xilli daa uu quustay kii hudheelka haysan cid wax ka iibsanay, ayuu baaqiga soo qaadaa. aabba wuxuu ii sheegay masjidka xaggiisa dambaa la jiifaa, albaabkii la soo garaacay inta loo sii socdo arday gaajaysanoo 2 habeen qatanaa waa qiyaasaysa, inta lagu sii yaacayaa midi wuxuu ku dhacaa tiirka, waxba ma arkayo, waa daciif, araggii baa daciifay. tiirkuu ku dhacaa, dabeedna halkaasuu ku suuxaa. ciduu u joojin mayso, waxna loo dhigi maaye. intii yareedee soo hadhay nin waliba waa wuxuu ka gaadho, kii sacab ka hela, kii 2 sacab ka hela. sidaasay waxa weeye cilmiga ku wadeen. maanta u malayn maayo miyuu jiraa qof 3 waqti qadaya, ya miyuu jiraa mid 3 waqti ka soo koobaya 2 isugu celiyey? aad bay u yarta. mid hal waqti ku kaaftoomay miyuu jiraa? ma jiro. bal waxaa laga yaabaa nusu saaco iyo casariye iyo quraacyo iyo kaagag iyo waxbaa dhex socda 3 waqti. duruuf wanaagsan baynu ku jirnaa. kutubtii maanta hadday iib tahay, haddii ay tahay waxa weeye noocay u tahayba waa la soo helay. waxaa kaa xiga mobeelka yar inaad ku shubato oo googalka aad ka soo dejisato intaasoo kitaab oo laga yaabo lacagtiisa inaad goysin. laakiin maca daalik waxaanu leenahay si kastoo wax loo fududeeyey sabir baa yaalla. sabirka yaallaa muxuu yahay? dee kow inaad ka sabirto social media. haddaad ka adkaysan weyda social media oo waktigii uu kaa luminayo, de waa sabir la-aan wey. waktigaaga inaad ka faa'iidaysato inaad ku sabirto. marka dadku maqaaxiyaha iyo fadhi ku-dirirka lagu mashquulsan yahay ee la sheekaysanayo, inaad masjidka ku soo hadho oo waxa weeye aad cilmigii aad dalabto oo dadka aad ka keliyowdo oo waxyaabaha lagu soo baxayo. waxyaabaha aniga i soo maray ee aan ilaahay uga mahad celiyo, aan isleeyahay maanta inta yar aad dadka kusoo hor fadhiisanayso qayb bay ka qaadatay. waxaa ka mid a mar la qaxay oo magaaladii Burco laga qaxay oo meel Yuruba la tuulo loo qaxay oo masaajidadu ay sarab yihiin, oo waxa weeye dee masaajidada laftoodu kuwan quruxda badan may ahayn. ayaa salaada subax marka la tukado
masjid meel cidlaa ku yaalla magaalada qoxoontiya waa garanaysaan oo wada basas iyo buulal iyo waxaa la wada degan yahay ayaa masjidkaasaa marka la tukado ninkii gacanta ku hayay baan furaha ka qaadanay waayo masjidka haddaan ka baxo meel la istaaga male guriga haddaan tago waa buul yaroo cidba qaadi maayo waa qoxoonti baa leeyahay meel kaloo la istaagana maqaaxi haddaad tagtana dee waxba ka faa'iidaysan maysid waxaan si fursad waxaa kuugu dhow masjidkaas mu'adinkaa ka qaataa furaha salaada subax marka la tukado masjidkaasoo cidla abaan hoosta ka soo xidhaa 16 jir baan ahaa kitaabkii aan ku xifdiyey maraaqi sacuud buu ahaa aan mudabila ku xifdiyey aad buu ilaahay ugu barakeeyey saaxiibaday mid kubad ciyaaraya mid suuqa ordaya mid quraac tegay raggii ila loodka ahaa aan wax wada dhiganaynin magaaladii kala galeen masjidkaa cidlada abaan aniguna dhex fadhiyaan kitaab ku qaybi yani nooc halgana ahayn raggii gaajooday kaadida cabbe ma ahayne laakiin waa halgan waqtigiisa u munaasiba innagana kaasoo kalea inoo yaalla inaynu intay doontaba halleekaatay in halgana iyo in dadaala iyo in sabira iyo in adkaysina noocay u tahayba inaad samayso markaasaad insha allahu tacaala cilmiga ka gungaadhaysaa ilahay cilmiga ha inoo fududeeyo jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu